kusoo dhawaada channelkeena, share, like, comment and subscribe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada daawadayaal, halka aad inaga daawanaysaan ama aad inagala socotaan waa channelkeennii, waa channelkiinii, waa channelkeedii, waa channelkeygii, waa channelkaagii Aragsan Bila Beauty Channel. Waxaan idinka rajaynaynaa waxay tahay like-ta, share-ka, comment-ka iyo subscribe-ka. Markii intaa laga soo gudbo waxaan rajaynayaa inaan mowduucayga koowaad markii laga soo gudbo dhanka kale oo aad igu barateen oo ah dhankan waxtarka jirka waxa u wanaagsan wajiga iyo qaybihiisa kala duwan jirka. Waxaan doonaynaa inaan mowduuc ama aan jeclaystay mowduuc mar walbeeto waxaa jiray maskaxdeeda ka dhex guuxayay oo aan ka dhex arkay bulshada dhexdeeda. Waxaan jeclaystay inaan idinla soo wadaago, waxaan rajayn doonaa inaad adinkuna ila jeclaan doontaan biidnillaahi kariim. Mowduucaas wax kale maahan, waxa uu yahay isticmaalka social media-ha iyo hooyooyinka ama haweenka Soomaaliyeed. Waa sidee aniga ka aragsan ahaan social media-ha hadda wixii ka dambeeyay Soomaalida wuxuu aad ugu dhex faafay ama isticmaalkoodu aad u batay 2010 wixii ka dambeeyay. Wixii ka horeeyay marka way yar tahay xisaabteeda ama dhacdooyinka kuwa farxad leh, kuwa naxdin leh, kuwa dhibaato leh, kuwa murugo leh, intaba intii aan kala kulmi jirnay social media-ha waa ay yareed. Laakiin dhankan Facebook-ka iyo YouTube-ka wixii 2010 ka dambeeyay ayaa si tartiib ah ugu soo taraaraxeenay. Marka maxaa la dhihi jiray raali noqday hadda hadallada qaldo social media-ha iyo haweenka Soomaaliyeed. Social media-ha iyo haweenka Soomaaliyeed. Maxaa iga soo eegaysaan haweenka Soomaaliyeed? Aniga wax xun ma ka sheegayo sababtoo ah aniga matalo fahanteen. Waxaa kaloo matasho adiga gabadha ah oo i hor fadhiya oo daawanaya channelkeena daawanaya. Waxaa kaloo matasha adiga wiilka ah oo hooyada ku dhashay ee haween tahay. Marka waxa ay tahay ama aan caawa halkan u fadhiyaa inaan bogaadiyo gabdhaha walaalahayga ah ee dhanka wanaagsan u isticmaala social media-ha, khaasatan dhanka YouTube channelada markii la fiiriyo. Hal iyo labo hooyooyin oo xoogaa qadka ka baxeen waana laga soo helayaa. Laakiin waxaa ka badan hooyooyinka iyo haweenka wanaagsan ee Soomaaliyeed ee social media-ha dhanka wanaagsan u isticmaala. Dhanka wanaagsan markii aan dhahayo ma ahan dhanka xiriirka qoyska iyo waxa oo kaliya. Hadda waxaa jira channelo waaweyn oo maanta bulshada caalamka ay ku xiran tahay. Bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku xiran tahay. Channeladaas oo hoggaanka ay u hayaan hooyooyin Soomaaliyeed oo ku dayasho leh. Aniguna waxaa dhiirigelin siiyay ama inaan hortiina soo fadhiisto channeladaas ayaa ka mid ah oo aan jeclahay in aan ku daydo dhankooda wanaagsan aan uga daydo. Markaan ka soo qaadno anagu hadda waxaan ku suganahay sida aad wada ogtihiin dalka Kenya, magaalo madaxdiisa Nairobi, gaar ahaan xaafadda Soomaalida u badan tahay ee Islii. La idinkama sheekeynayo dhanka social media-ha khaasatan Facebook-ka iyo YouTube-ka. Inta inaga isticmaasho maanta reer Nairobi ee Soomaaliyeed ee laga yaqaano ee caanka ah. Sida xaqiiqda markii laga hadlo hooyooyin waxaa buuxo aad u fara badan oo YouTube channel leh. Hadday cunto soo gelinayaan, hadday xawaashi soo gelinayaan, hadday soo gelinayaan dhankan iyo quruxda dumarka. Waxayna noo noqotay wada wanaagsan oo aan ku daysano. Anigu markii aan qiyaasay percentage ahaan aan kala qaybiyay, waxaan u qaybiyay dhanka hoggaanka hadda magaalada Nairobi oo kale ama wadan kasteeto xataa Mareykanka fiiri, waxaa fiirisaa caalamka intiisa kale. Aaladahan waxaa ku soo xigto dhankan social media markii la fiiriyo Snapchat-ka maanta hadday maanta kugu jirto dhowr dumar ah Snapchat-kooda ugu yaraan 2-3 ka badan waxa ay ku soo gudbiyaan channel-kooda wuxuu yahay ama inay cunto karinayso, ama inay saloon joogto ay timo hagaajinayso, inay cilaan sameynayso, inay ilmo xanaaneynayso.
maasha allah tabaaraka allah. Marka waxaan arkay ama waxaa jirto wax bulshadeena in ay ku baraarugsan tahay, ma ogi inay jirto, laakiin anigu aan dareemay. Waxaan dareemay marka hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan in yar mooye inay social mediaha ay u isticmaalaan dhanka wanaagsan, ku dayashadana leh. Markii hadda laga soo qaado kale riwaayadaha oo kale toola oo la jilayo, badanaa ma jirta xataa hooyo u samaysata janalkeeda in ay riwaayada kaliya ay samayso, ilaa ma inay groupkooda hore team ay ahaayeen oo teamkaas rag iyo dumar ay iskugu jireen oo sidaas ay rabaan inay riwaayada iyo ku jilaan. Laakiin inta kale toole waxa ay yihiin hooyooyin ayagu is abaabulay, naftooda isku abaabulay, raali noqda, naftooda isku abaabulay. Okay, waxaan rajeynayaa inaad si fiican ay maqlaysaan. Hooyooyin ayagu is abaabulay, u istaagay bulshadooda, u istaagay culayskii saarnaa ee guriga, inay haddana ayagii waxtarkooda ay gaarsiiyaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Caawa ma doonayo ama barnaamijkaygan uma soo diyaarsanin, sababtoo ah iskama soo qaadan karo magacyada, laakiin hadda waxaa ka soo qaadan karaa tusaale oo kale toole. Laba gabdhood oo hadda magaalada Nairobi maasha allah tabaaraka allah aniga aan ka garanayo oo dhanka social mediahana aan ku bartay markii ugu horeysay, markii xigtayna si live ah aan ula kulmay oo aan u bartay. Adinkuna aad ka wada taqaanaan dhanka YouTube-ka. Ha ugu horeyso walaashay hooyo macaan, halkan baan ka salaamayaa. sidoo kale walaashii Shukri Masalla. Gabdhahaas oo kale waxay yihiin marka hooyooyinku dayasho leh, si wanaagsan u isticmaala social media, la imaaday xirfadoodii, haday ahaan lahayd cunto karin, haday ahaan lahayd in dhanka kariimyada iyo waxyaabaha wajiga u wanaagsan, haday ahaan lahayd dhan walba toole inay bulshadoodii la soo hor istaageen uguna soo gudbiyaan si wanaagsan oo xilqaan leh oo ku dayasho leh. sidaas iyo si lamid ah waxaa jiro aan soo tirin karin walaalo aad u fara badan oo igula sugan magaalada Nairobi oo channel caan ah qabo oo soo gudbiyo wax bulshadooda anfacaya. sidoo kale waxaa jiro gabdho walaalahay oo aqaan oo Mareykanka jooga oo Ingiriiska jooga oo meel walba jooga oo channel leh oo ay soo geliyo cuntooyinka, oo soo geliyo guryaha sida loo hagaajiyo, oo soo geliyo sida ilmaha loo xanaaneeyo. waxaas oo dhan marka waxa ay tahay maasha Allah tabaarakallah inaad uga xamdisaan bulshadeena Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan oo hooyooyinkaasna aad u mahad celisaan sida wanaagsan ee idinkugu soo gudbiyaan ee idinkugu faa'iideeyaan ay iskugu xilqaameen, waana si ku dayasho mudan. ma jirto hadda aniga hadda sida aan aaminsanahay aragsan ahaan hooyo iskaga soo gasha ama haween okay gabadh kasteeto waa hooyo, sababtoo haddii hadda maanta ahayn waxay noqon doontaa beri toole hadduu Ilaahay idmo. mar walba toole waxaa laga fikiraya waxay tahay mustaqbalka fog biidnillaahi kariim. marka gabar walba oo haween ah oo dumar ah waxa ay xambaarsan tahay magaca hooyo. aad baan u jeclahay hooyaday, hooyooyinka oo dhanna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo ha sharfo. ma doonayo inaan videogan aan ku dheeraado. marka waxa ay tahay bulshadeena Soomaaliyeed kaalin buuxda ayay ka muujiyeen haweenka Soomaaliyeed ee ku kala sugan daafaha caalamka, khaasatan magaalada Nairobi. waa haween ama hooyooyin ku dayasho leh, mudan in la ixtiraamo, mudan in la sabood gareeyo oo aadna sabood gareyseen oo aadna u ogtihiin wanaagooda. maanta ma jirto gabar inta iska soo baxdo social mediaha iska soo aadeysa. ilaa hadda gabdhaha xataa riwaayadaha iyo waxaa inoo jila laftirkooda entertainment hayaan, laakiin xataa gabar keligeed jisha ma jirto ilaa ma inay wiil ku lamaan tahay ama asagu uu horboodaya ma ahane. marka wixii xumaan ah nafteeni min shaydaan ka ahaatay. badanaa hooyooyinka waxay u badan yihiin ama haweenka Soomaaliyeed kuwa ka fog marka dhanka xumaanta inay social media u isticmaalaan. waxaa jirto ani kuley hadii hadda dhanka kaleeta la dhaho dhanka haweenka hal hooyo un baan garanay xoogaa meesha meel yara qaldan naga aaday iyo hooyo kaleeto oo ayada laftirkeeda qurbaha joogtay. laakiin dhanka YouTube-ka hadda sida aan hayno recordkeena inama gaaraan wiilasheena adinkana walaalaheena tihiin meel fog nagama jirtaan. waxay noo soo gudbisaan entertainment inkastoo xoogaa isku dhegdheg iyo waxaas ay jirto, haddana saasay tahay waxay tahay waan is wada sabood gareynaa, waan is wada taageernaa. marka waxaan doonayaa inaan halkan videogayga ma doonayo inuu idinku dheeraado.
waxay kaliya ay iga tahay in ay gabdhaha xataa aniga iga dambeeya ay u noqoto dhiirigelin u noqoto in aad uga faa'iideysan kartid waqtigaada si wanaagsan dadkana aad uga faa'iideyn kartid. tusaale ahaan marka aad soo qaadato marka aad tiraahdo maanta waxaan rabaa inaan dad hor istaago, waxaan rabaa inaan YouTube channel furto, inaan social media galo, adiga oo xumaan sameynin ayaad ukhti casiiza ama walaashayda qaaliga ahayd ama walaalkayga qaaliga ahaayo ayaad magacaada adigoo ilaalsanaya, sumcadda ehelkaada, sharaftaada, awlaad haddii kuu joogto, haddii ilaahay uu ku siiyo, intaba adigoo ilaalsanaya ayaa si tartiib ah uga faa'iideysan kartaa social mediaha. wayna jiraan marka caawa waxaan idin tusaya oo kaliya inay jiraan hooyooyin wanaagsan ama haween wanaagsan oo dhanka wanaagsan oo isticmaala social mediaha ayagoo reerkooda, awlaadooda, familkooda intaba maasha Allah magac iyo ixtiraam iyo intaba ku leh, bulshada dhexdoodana ku leh. soo marka ma ahan inaad xumaan aad wax ku raadiso, samaan waad ku heli kartaa waxaana kugu filan intaasoo qof oo samaan inta ay ku joogaan social mediaha waxna ku helay. marka aniguna waxaan rajeynayaa biidnillaahi kariim inaan naftayda iyo ehelkayga iyo awlaadayda iyo dhan walbeetaba insha Allah anigoo ilaalinaya xishmada ay iga mudan yihiin aan insha Allah wax wanaagsan idinla hor imaan doono mar walbeeto le biidnillaahi kariim. wixii intaan marka walaashina aragsan bil waxay idin leedahay waxaa heli kartaa inaad ku soo caanbaxdo ama aad bulshadaada ku dhex joogto si wanaagsan oo fudud adiga oo xumaan iyo waxaasoo dhan aada sameynin. marka maskaxdaada marka aad rabto inaad wax sameyso xumaan oo dhan iska dhig, just waxaa kaliya oo sawirataa wanaaga, waxaadna ku dadaashaa sida aad wanaag u sameyn lahayd. markaas guul walbeeto oo aad rabto waad gaaraysaa biidnillaahi kariim. wax walbeetana ilaahay u tala saaro, fa idaa cazamta fatawakal cala Allah. aad baad ugu mahadsantihiin soo booqashada iyo daawashada channelka Aragsan Beauty Channel. waxaan idinka rajeynaynaa waa subscribe-ka, like-ta iyo share-ka iyo comment-ka wanaagsan. aad baad u mahadsantihiin.